شرفت بدن له حلبان نذا أقل كسرة مسؤولين تسفارضها كسوق بجلياش حفلة أو سوجنا إيست أفريكا كوميونيتي يو جامعة بدمانتي وحد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دام أو ترانسليشن جرو وحنا ربعنا اللغة الصومالية كله أنت أسكدي بحنا ربع مركو الرئيسة إن سود ويو برنامج كان روح بدل سوق بنقابيين ولا لهن سمت أو رنتي إيست أفريكان كوميونيتي برنامج كيسة عن ضد اللبض المعلومات كوي ولا هلي دونه واحد بدلنا يكسب به الدوران delegation كانوا يمد يجنا عستين الجوكتنا يجمع عليه نبأ واحد بدلنا إسرافسن دوننا واحد بدلنا أيانو يكسب به الدوران أنت أسكت بحنا ربارك جناسي ورشدها الصوماليات وحي متشاء جناس تدا يجناسي الصوماليات وحي نحبين كتاعي ضمان أورد قبل هذا يأدون كديجنا وحينا لا ده وده شقين حريرك من بردا جمبر أوف كوميرس يعني وحجارة إلى الله بكون يلا بقوله كمبني أيام من بركة روت جناسيجا أد أسود وينيسا كبيرست بولشة بريجا أفريقيا وحنا كقادة هوش هو المهم وحنا كحبين بهذا كان هاي بولشة بريجا أفريقيا 2023 أيام مركي اللي قلوا واقعي بهراء وقبيرتي روت جناسيجا الصوماليات حبين بهذا أنا كان هاي إيست أفريكان جمبر أوف كوميرس ganacsatada Soomaaliyeed barnaamijkan wuxuu u leeyahay faa'iido gaar ah maadaama dhaqdhaqaaqa ganacsatada Soomaaliyeed ay ku baahsan tahay Afrika iyo meelo badan oo adduunka ka mid ah Soomaaliya ganacsiga waxay ku tahay waa miskaxiyan ay miskax ganacsatada u leedahay Soomaalidu marka u fiiriso qaaradaha adduunka Mareykanka ama Yurubiyanka ama Afrikaba Soomaalida ganacsigeeda aad ay uga dhex muuqataa barnaamijkaana East Africa ahaan ganacsateen wax badan oo u taray oo waa ku milanay markaan maadaama aan meelo badan ganacsi badan aan ku leenahay waxay kaloo ganacsatada Soomaaliyeed oo hadda rugta ganacsiga ay ka shaqeynaysaa sidii ganacsadeena aan isugu baraarujin lahayn ku beeristaas faa'iidada aan ka helayno oo ah in population tiro badan oo ilaa 400 milyan oo customer aan ka dhaxelayno in warshadaheena Soomaaliyeed aan dib u soo celino oo aan isla maalgashano ajaanibta aan la hadalno iyo ganacsadeena waxaan hadda ku tala jirnaa warshadihii sonkorta iyo dharka iyo Ethiopia iyo warshadaheena hore oo dhanba inaan dib u soo celino si aan uga faa'iideysano marketskaas tirada badan leh aan hadda aan qaybta ka nahay insha Allah waxaan kaloo ganacsatada Soomaaliyeed ay codsatay soo jeedinaysaa inay helaan aqoon iyo waayo aragnimo ay ka kororsadaan dawladaha muddada dheer xubinta ka ahaa isu taga bariga bulshada Afrika waxay kaloo ay ganacsatada Soomaaliyeed ay codsanayaan in qaabka dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobolka iyo canshuuruhuba ay u shaqeynayaan in ay farsamo ahaan ay si degdeg ah ay u fahmaan si ay uga qayb qaataan qaabka canshuuraha bariga Afrika oo qaab isku dhaf ah waxay ganacsatada Soomaaliyeed kala dalbanayaan in xiriirka wada shaqeynta ee xarumaha la sahlo gaar ahaan anaga iyo qolooyinka aan wada shaqeynta leenahay ugu dambeyntii Soomaaliya waxay leedahay beero iyo xoolo iyo kalluumaysi iyo xeebta ugu dheer Afrika waxayna fursad u tahay ka ganacsiga gobolka uu leeyahay adduunka oo dhan waxayna danaynaynaa inaan isla wada maalgashano xeebteenaas iyo kalluumaysigeena si aan anaga oo dhan isula qaadano waxaan soo dhaweynaynaa kulamadeena caawa iyo bariba oo dhici doona B2B-ga oo ganacsatada iyo investorska iyo maxaan ku raadada dadka la azumay ay caawa iyo bariba yeelan doonaan oo aan rajeynayno inay wax qurux badan ka soo baxaan waxaan rajeynaynaa in ay ka soo baxaan talooyin iyo xiriiro wax ku ool ah oo mustaqbalka wax ka anfaca waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa simad oo barnaamijkan iyo uradii la qaban qaabiyay soo qaban qaabiyana waxaan leenahay waa mahadsantiin waana rajeynaynaa sanad walba inuu barnaamijkan noo dhaco oo mar kastaba aan horumar sii sameeyno intaasaan warkii soo ogaano mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh